الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. waxaynu khudbadii ka horeysay tan kaga soo hadalnay qalbiga wanaagsan, maantana waa qowlka wanaagsan. haddii qofka muslimkii labadaa uu isla helo wuu macaanaanayaa, wuu udgoonaanayaa. waa qof qalbi fiican oo qowl fiican, baba laga xiisa goynayo. marka labadaasaynu iska tiirinaynaa, hagaajinaynaa. idan markaa mawduucu waxa weeye alkalimatu ayibatu wa aahaaruha alxasana. erayga wanaagsan iyo raadka uu ku leeyahay nafta iyo camalkaba. qofka mu'minka ahi waa ayib, walaa yatakalamu ilaa ayiban. waa qof wanaagsan oo wax wanaagsan uu ku hadla. ummadaha erayga wanaagsani ama dabacsani uu ku adagyahay baa laynagu tiriyaa. marka inaynu sharciga ku dhaqanno ayaa waajiba, si warkeenu iyo camalkeennuba u wanaagsanaado. ilaahay baa wuxuu uhi waطayibaatu liطayibiin waطayibuuna liطayibaat. tafaasiirta culimadu mariyeen waxaa ka mid ah ereyada wanaagsan, ragga wanaagsan iyo dumarka wanaagsan baa ku dhawaaqa. dadka wanaagsanna waa noqonaya ereygu, ereyada fiicanna waa noqonaya. nebigu sala allahu calayhi wasalam ereygaa markuu ka hadlaya wuxuu ku tiriyey sadaqooyinka. waalkalimatu ayibatu sadaqa. maxaa lacagee kaaga baxaya inaad erey macaan oo wanaagsan ama iclaamka kusii dayso, ama baraha bulshada, ama dadka ku tidhaahdo, ama dadka kula kulanto? waba sadaqaba. lacagta aada bixisay waxay dhali lahayd wax lamida buu ereygaasi dhalaya. min caadatihi sala allahu calayhi wasalam, dhaqankii nabiga ka mid ahay inuu erey wacan ama wanaagsanuun ka soo bixi jiray. nin khawaarijtii ka mida ciday ka farcameen ayaa nabiga u kala tiriyo, isagoo nabigu wax qaybinaya ayuu ihi cadaalad samee. maad cadaalad samayn. qaybtaa aada samaysay waa midaan ilaahay daraaddii loola jeedo, ilaahay wejigiisa loolama jeeda. nebi maxamed buu saa ku yidhi sala allahu calayhi wasalam. ereygu nebigu wax kale ma odhana, wuxuu yihi waylak waman yacdil idaa lam acdil. guuldarayste yaa cadaalad samaynaya haddaan nebi maxamed cadaalad samayn. rasuulku sala allahu calayhi wasalam nooc waanaa buu ninkaa usoo jeediyey, weliba xumaanta dee asxaabtu ay dooneenba inay dilaan. kelmadda wanaagsani waxa ay ku gaadhsiin kartaa janno weyn, kelmadda xumina naar weyn. xadiid saxiixa nabigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inaynu ka fiirsanno ereyga aynu tuurayno. markaasaa wuxu uhi ina axadakum layatakalamu bilkalimati min ridwaan illaahi maa yulqi laha baalan aw maa yadunnu annaha tabluqu maa balaqat. qofku erey buu ku dhawaaqaa wanaagsan oo aanu islahayn ereygaasi waa wax weynba, laakiin waa erey ilaahay raalligelinaya. markaasuu naarta jannada ku galaayo, ilaahay baa maalinta uu la kulmo kaga raalli noqda. sidaasoo kale erey xun buu ku dhawaaqaa, uu isleeyahay wax dhibaba male ereygan, markaasuu ilaahay ugu cadhoodaa, naarta uu ku galaa. mar kale nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam, waa ahmiyadda ereyga nusuustani tilmaamaysa saxiixa ah. ereygu miisaanku leeyahay in layska hubsado. itaquu naara walow bishiqi tamra fain lam tajid fabikalimatin ayiba. waa xadiidkii horu la macnayay. naartu bani aadamka waa kusoo jahaysantaha sadaqooyin iska xigsiiya, xaba timira jeexeedna ha ahaato. haddaad weydana kelmadda wanaagsan ku dadaal. ereyga wanaagsan dadkao dhan baa lagula dhaqmaya. ilaahay baa wuxu uhi waqul licibaadii yaquulu latii hiya axsan. nebi maxamed oo addoommahayga fariintan gaadhsiiya waxaad ku tidhahdaa kelmadda fiican ogaada, kelmadda fiican ku dhawaaqa. mar kalena ilaahay wuxu uhi waquuluu linnaasi xusna. dadka oo dhan wax wanaagsan ku dhaha, mid dhow iyo mid dheer, nacab iyo gacal. ereyga wanaagsan ogaada baa ilaahay u leeyay. xataa maca alkaafir, gaalkii xataa. faquulaa lahu qowla layina.
nabi muuse iyo haaruun buu ilaahay dirayaa wuxuu ihi fircoon baa u tegaysaane hadal wanaagsan la ogaado dabacsan oo mid qalbigiisa gaaraya idinku doorkiina qaata inuu hanuunayo iyo in kale ilaahay bay u taallaa erayga wanaagsan ilaahay wuu ina faray in waalidka lagula dhaqmo oo wax macaan oo wanaagsan oo ka farxiya mooye wax ka naxiya aanu kaa soo fulin imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uf walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawla kariima hadday daaweynaa waalidku daaweyn waa waktiga dhibku aada usii damqaya waktiga kalena waa la miduune ufa ku odhani hana huruufin hadal wanaagsan ku dhawaa ilaahay subxaana wa tacaala hadal macaan oo wanaagsan oo ka farxiya waalidka la ogow wakadalik maca saa'il qofkii kuu yimi ee wax kuu soo mooday haddaanad waxba taraynin iyo haddaad wax taraysaba eray wanaagsan wa ama saa'ila falaa tanhar ha guulguulina ha huruufin buu ilahay yihi kii wax ku weydiistay allah kariim ilaahay noo waasiciyo iga raalli ahow qowlun macruufun wa makfiratun khayrun min sadaqa yatbacuhaa adaa hadal wanaagsan iyo dulqaad baaba ka fiican deeq huruuf iyo hanjabaade ay raacday waa qowl baa ilaahay uu tilmaamaya subxaana wa tacala waxaad bixisee badnaa haddii balaayo aad ka daba tuurto iga raalli ahow waaba ka wanaagsan baa ilaahay uu tilmaamaya subxaana wa tacaala ereyga wanaagsan xataa maca alxayawaanaat qofka muminka xataa xayawaanku erey wanaagsan kula dhaqmaya iyadoo safar lagu jiro ayaa ruux dumarabaa hasheedii istidhi kici markay rartay kadib waxay aragtay nebigii oo kaabiga keeno kusoo dhawaaday waa nin ka yar xishoonaysa ka kacbay tiri meesha xal waa marka neefka la kicinaya allaha ku nacdale hashii bay ku leedahay meesha ka kac nebigii baa nagu soo kaa gaadhay allaha ku nacdalo kolkaasuu nebigu laa tasxabunaa naaqatun calayha lacna calaa macna xadiid na raaci maysa hal nacdale dusha ka saaran tahay hasha ka taga daba bal maxay ereygii ka macaashtay inay hasheedii ku weyday xataa maca aljamaadaat shayga qalalay laftiisa haddaad ka warbixinayso ama kelmad ku odhanayso kelmad xun maya dabayl baa soo dhacday sida xadiidka saxiixa ibnu cabaas uu warinaya ay tilmaamayso iyadoo asxaabtu nabiga la joogaan nin bay dabayshi ku dhabato maradii bay ka qaadi gaadhay kolkaasaa nebigu ninkii u nacdalay dabayshi nebigu waxau ihi laa talcaha fa inaha ma'muura war dabaysha laftigeeda ilaahay baa fara hawl bay u socotaa ha nacdalin nacdasha iska daa erey wanaagsan baa lagaa doonaya erey xun maya qof kasta oo wax nacdala ciddaa uu nacdalay haddaanu nacdasha ehel u ahayn oonu gaal ahayn isagay kusoo noqotaa buu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam kelmaddu waxa ay leedahay wanaagsani raad fiican fii nufuusi alcibaad dadka dareenkooda iyo qalbigoodaba qisas baynu soo qaadan kooban ereygaasay ku dadaali jireen ay dadka ku hanuunin jireen asxaabtu nebi maxamed gacantiisa ku tababaray sala allahu calayhi wasalam qofkiioo kurul oo kadeedan oo dagaal inuu iyaga la dagaalamo u diyaara ereygaasay ku qaban jireen halka ummadaha kale isku daya inay xoog ku qabtaan qofka raggii ugu horreynuu nebigu u diray madiina waxaa ka mid ahaa muscab ibnu cumayr oo nebiga ka hor hijrooday sala allahu calayhi wasalam diyaarinaya madiina dadka soo islaaminaya maalin maalmaha ka mida iyada oo muscab ibnu cumayr iyo ascad ibnu zuraar ay wada fadhiyaan ayaa waxa u yimi usayd ibnu xudayr asxaabigii la odhan jiray ee qiimaha badnaa qiirada badnaa xadiidkuna bukhaari buu ku sugan yahay uu u hanjabay waranna wuu sitaa wuxuu leeyahay ma dadka iyagiiba caqligoodii kasoo qaadeen waxaan jirin ma dhaqanka iyagiiba kusoo duusheen muscab wuxuu ihi bal erey uniga dhagayso horta hana nala dagaalami hana noo hanjabin hal erey un baan ku odhanayaa haddaad ereygaa jeclaysato way dhantay haddaad diiddana waan iska tegi dee wax wanaagsan baabaad sheegto cadaalad baad sheegtay balaan yar dhagaysta buu ihi intuu warankiisii taagay in yaroo wacdiya buu u dhiibay aayadana wuu ku akhriyey wuxuu ihi adaa xora kuma qasbayo markuu aada u dhagaystay uu dhagaystay waabuu islaamayba haddana waxay sacdu bnu mucaad oo suldaan weyn ahaa waktigaa intii leeg buu iyagii u hanjabay isagiina wuxuu ku yihi muscab bal haddana yar dhagaysan yar intii leeg buu ku akhriyay isaguna wuu islaamay dadkii suldaanka u ahaa uu ku noqdaa wuxuu ihi gabal inoo kala dhici maayo
ama waan dagaalamayna ama waada islaamaysa sabab bay u noqotay inuu markaa uu noqday inuu soo islaamiyo reerkiisi qoyska uu kala kaxayn karaa eray lagu dhawaaqay qaraarkooda iyo go-aankooda uu noqon karaa uu soo gabagabayn karaa waxaynu soo qaadan karnaa qisadii saxiixa ku sugnay nebi ibraahim calayhi salaam isagoo muddo ka maqnaa inankiisii ismaaciil markii halkaa kacbada dhigay ayuu beri dambe yimi wuxuu la kulmay xaaskiisi iyadoon garanayn wuu waraystay maxaa qabtaan way calaan cashay islaan yaro xayraana bay noqotayoo dala ayaanu ku nool laho in yaroo hilbiyo in yaroo biyaa baanu haysanaa nolosha iyadu waa noola liidata uu iska noqdo wuxuu yihi igu salaanoo albaabka fayaaradiisa bedel dheh miyay ka macaashtay ereyga albaabka fayaaradiisa waa iyadiiba markay fariintii u sheegtayna dee waad furan tahay markii dambuu soo noqdayna tii dambuu guursaday buu waraystayoo erey bushaaraa bay jeedisay wuxuu hi igu salaanoo weliis bay aragada waxaad tidhaahdaa albaabka fayaaradiisa dayso waa iyada hala daayo marka ayaa maxeerada iyo dayrada iyo hadallada xun inay dadka kala eri karaan qoysaskana burburin karaan wax jiro wey waxaa sidaasoo kale ah munaafiqiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku gaaleeyey erey ay ku dhawaaqeen oo intay nebiga iyo asxaabta wax ka sheegeen oo fulaynimo iyo cirweynaan iyo ay ku sheegeen ayaa nin asxaabii nebiga gaadhsiiyey sala allahu calayhi wasalam markii la yidhi maxaa waxaa u tidhaahdeenna waxay dhahan waa kaftamaynay ereygu kaftan buu ahaa oo may ahayn dee wax naga dhaba ma intiibuu yarku idiin keenay intaas in iska ciyaara bay ahayd qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ereygaa waa ku gaalowdeen weligiinba kaftan ku sheegaba ilaahay subxaana wa tacaala in ilaahay aayadihiisa iyo rasuulkiisa lagu dheeldheelo waa lagu gaaloobayaa ereygu wuxuu noqon karaa sabab alhalaag wa sabab alnajaah wuxuu qofku ku nabadgalaya wuxuu ku halaagsamo labadaba qisooyinkii yaryaraa koobkoobnaa baynu sii wadnaa nin reer miyuu nebigu soo booqday sala allahu calayhi wasalam isagoo buka saxiixuu ku sugan yahay xadiidku markaasuu yihi hebelow iska waran laa ba'sa calayka tahuurun in shaa allah balaaya ma jirto ilaahay baa dembiga kaaga nadiifinaya xanuunka odaygii intuu kumuu joogina wuxuu ihi bal hiya xumaa tafuur fii shaykhin calaa shaykhin kabiir tusiiruhu lqubuur sidaa ha odhanine waa xumad kulul buuri oo oday weyn heshay oo xabaalaha geyn doonta isaguna ereygaa adag buu ka hor keenay nebiga ducadiisi markaa nebigu wuxu uhi fa nacam idan dee waaye haddaa sidiibuu ku dhintayba ila ducadii mar hadduu diiday habaarkiibaa loo ayaa la yidhi haddaba aamiin dee kor haddaad xagga xabaalaha xiisaynaysa dee aamiin oo ducadii diiday qiso kalaa jirto qarniyadii dhexe dhacday ninbaa waxaa la odhan jiray khayreh ninkaasi nin erey macaan buu ahaayo wax kasta oo loo sheegaba shar iyo khayr isagu khayrun buu odhan jiray khayr insha allah maalintii dambe ciyaalkiisii warbixin soo siiyana waxay idhaahdeen dameerkii waa la dhacay khayran insha allah dameerkii xaafadda joogay hadda waa la kaxaystay ayay ku yidhaha markaa halkuu qaylin lahaa odhan la raadiyo ha la soo qabto khayran insha allah haddana laba habeen kadib baa waxaa lagu yidhi bahalkii aygiina waa la dilay khayran insha allah habeenkii saddexaadna waxaa la yidhi digaagadiina waa la cunay wuxuu yihi khayran insha allah dee ma khayran unbaad haysaaye shar oo dhan baabay nagu soo ururay khayrku xaguu jooga xooliiba dhacmay muddo yar kadib baa col geediyabaa habeen miray oo ku fadhiistay beeshii waxay soo sanqa dhagaysteen reerku ka ciyayay ayga dameerka iyo digaaga intaasubaa la sanqa dhagaystay reerkiisu meel koonaa buu yaallaa wax ka ciyayana male reerkiisi baa nabad galay khayrantii faa'iidadeedii buu helay ereyga wanaagsan ilaahay waa aqbalaya subxaana wa tacaala waxa ilaahay uu inaga sugayaa erey xun inagama sugaya adduunkan markaynu ku noolnay erey wanaagsan baa ilaahay xaggiisa u gudbo ilaahay uu inaga aqbalaa ilayhi yascadu lkalimu ayibu waalcamalu asaalixu yarfacu ilaahay xaggiisa wuxuu aqbalaa oo uu idinka guddoomaa ereyga wanaagsan buu ilaahay yidhi kaasunbaa alla xaggiisa u gudbi karaya ereyga wanaagsan qur-aanku wuxuu tilmaamay inuu xidhiidana leeyahay laamana leeyahay midho laga goostana leeyahay tusaala ilaahay uu bixiyaa waxau ihi alam tara kayfa daraba allahu maala kalimatan ayiba
كشجرة طيبة تصالها إلهي كدقيسو إلهي تسالو كوسمي قفك مسلم كاهو إريقا وناكسن إنو لم يديها قيد وناكسن وكسي داية دولكا حديدة سيدا دايرا لامه سينا كرو بحيي تؤتي كلها كل حين بإذن ربها قيد كاسمريه سنوح صوصاريا إلهي إذن كيبو كم بداينا يا سوى بضينا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون إلهي وحول تصالا ندسينا يا سيدتك وانت وبان مركا القرآن كوحي نسينا يا أريقا في عن إيو رادك أوليه سيدا قيدك في عن أو حددك أوياش مراها أولا أريقا في عننا قلوبتا يبل شذا لفتيدا مفتاح ونكسبو نغدا وقالا كدبنا واقنعيا كدبنا وسوتشي يا قلوبتا ومفتاح القلوب عليا نماذج من الكلمات الطيبة التي شرعها لنا الإسلام أرى في عنه إسلام وإنه دقي إن نكون قناوة مهم وحول بنا وإنه هجاجيا أنفع الدنيا أجر آخرة وكهلينا مثلا أرى يضع حكم عند اللقاء والمغادرة إسلام كل حين شيء مركا إنه هذه يشير كلنا يمرك إنه كلا تجي إنما محل إنه شيء أرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayaad ku kulantay waana ku kala tagteen inda al-urs markaad xafladii arooska timaado ereyda lagu dhidhe hambalyana ah ducana ah barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa baynakuma bi khayr wa durusta islaamku ina baray way ereyada macaan anta galba inoogu faana annaga idinka af iyo ereyo wanaagsan oo idinka raali gelin badan ayaa la ina yiraahdaa islaamkeenu wuxuu inoo dhigay wax la soo koobi karaba ma عند زيارة المريض قفك بكا مركا الله صوب وقنا وإنك سواء أركين والنبي صلى الله عليه وسلم لا بأس عليك ظهور إن شاء الله بلا يكون ما هيستو نبمتشرو إن شاء الله ودم بيقوم بقى إلى هاي كاغا صلابين وهديك حنون كلو لك وهي لنا عكرات كم عاشيس وكيدك آخر أيوكو قل يجرقيس عند المصيبة مركا دبات بعضه يددكو قيلين يا قرآن كوحي نبرين ليلا إنا لله وإنا إليه راجعون sidoo kale marka aad shay la yaabto halkaad ka cawri lahayd ee qumay ku noqon lahayd ama aad xaasib lahayd waxa la oranayaa ma sha Allah tabaaraka Allah ma sha ilaahay wuxuu doono isaga ayaa sameeya ilaahay baa baraka batay subhanahu wa ta'ala hadaad ilaahay nicmo ka hesho hada firin hana aamusin alxamdulillah hadii dadku ku sabafalaan oo ihsaan lagu sameeyo nabigu wuxuu maxaa la oranayaa jazakallahu khayran إلهي خيرك كوجو بالي فقد أبلغ في الثناء النبي يقول لي قفك الدعاء دي وكحيل دير هذا قف كي وصم فلا قفك إلى هذا جزاك الله خيرا وكذلك هتقول هذا شكرا لك يا نواجر وكي النبي يقول صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أريك شكر نوال لوران كراي سجنا سيدك لا هدي قفك أدمالك قد عذا عذرا وعفوا والعذر عند الكرام مقبول inaad tiraahdo raali haw ka raali gelinaya gafka wa talaynu kari laay ma ana hagaagsanaa buu leeyahay soo taagay ma sidaan ay ahay waxaba way dajinaysaa in laba dawladood oo isqabsaday laba qabiilo isqabsaday laba qof oo isku dhimanaya ay dhaan raali haw ana khaldanaa way dhamaanaysaaba waa inaha inagu adag bay kamid hatta nin mas'uulaha intuu khalad ku dhacay iraada sida gaalada anu waan iscasilay qaladka ana la waan iscasilay way inagu yartay waa iska naadir waxa kamid ah in aan dadka jaf u noolanin markaad u timaado aad tiraahdo ataadanu li hadalka ma qaadan kara ma ogolaan karta niman asxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam nin hadalku ku bilaabay nin kalena wuxuu iidan li ma oran kara ma kula hadli kara nabigu u fasaxay asxaabtu waxay dhahan kana afqaha min ninka erayga yiri ba ka faqiihsanaa bay dhahan tacliiqa iyo lifaaqay raaciyeen waxay u raaciyeen hadalkii sidii kii hore kuma bilaabin uu nabiga wuxuu ma ii ogolaan karta waataynu inagu la yaab dadka dabalaha ay ka yimaada ka soo dhaadhaca haduu qof ku yimaado oo kula ma kula hadli karaa ma ina lama hadli kartid oo iska tag bay oranaya waxay doonayaan koodii la isku daldali jiray mustaqbalka hadaad ka waramayso waxa saan u yeelayna waxa saan qabanaya islaamku ma ogola waxa lagu insha Allah anbiyada ilaahay hadda insha Allah oran waa lagu qabsan jiray inagana maxaad inoo malaynaysaa والله يسكو حقرا وحلا لا إن شاء الله هتقول هذا شغل عربات بكنا شغل عربات ما هو شغل كي إسلامك
in shaa allah. sidoo kale cinda tashjiic caruurtaada, saaxiibadaada, shaqaalahaaga, ummadaada qofka wanaag sameeya waanaad tidhaha waad wanaagsan tahay, waxa aad fiican samaysayna waad ku ammaanan tahay, siduu nabigu samayn jiray. nin asxaabiga ku uhi nicma arajulu cabdullaahi low kaana yusalli min alleyl. ninkaa cabdilaahi waa nin wanaagsan buuri, wanaaggii kan uu qarina wuu qiray, laakiin cibaadada habeenkiina ha raaciyo. marka waxaynu kusoo ururnaya walaalayaal, haddii labadaas isu keen raacaan oo laba iska adag casrigan aynu joogna, qowl wanaagsan iyo qalbi wanaagsan, dhaqanka iyo diinta iyo cibaadada iyo wada noolaanshaheeduba wada noolaanshahaynu wada noolnahayba uu inoo fiicnaan doona. allah inoo wanaajiyo. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث اللهم أسقنا الغيث اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.